hawl baan galaynaa oo waa run gudida fulinta waxa leenahay hawl baan galaynaa waa run weeyaa maanta bedelaad iyo hawshaas uma joogo inaan dhexda xiranaan u baahno oo suuqa la adkaysto halka inay ka sii wadaan annaguna diyaar baan nahay waxaan saleehay wixii afka laga yiraahdo wixii ay indhuhu arkayaan ayaa ka wanaagsan 10 sannadood buu maanta taagan yahay 20 sannadood wixii lagu samayn lahaa ayuu 10 sannadood maanta nagu tus waxaan saleehay wax dambe oo noo yimaada annagu raalli kamanu nihin mana doonayno madaxweynaha iyaga qaalibuu nagu yahay nin dalkiisa u fikiraya nin shacbigiisa u fikiraya nin diintiisa u fikiraya nin ay ku dheehan tahay nabadgelyada dalku maanta isagaan arkayna ku damba oo yimaada oo na baadhbaadha annagu raalli kamanu nihin hareeraheenna waxaa ka baxayaa ninkii caqli lihi wuu arkayaa maanta madaqadeennaa yar ee waxba ahayn ee yar iyo maanta adduunka ugu qaalisan maxaana yeelay madaxweyne toosan oo caqli leh oo dalkiisa u fikiraya oo shacbigiisa gacanta ku haysta iyo dhaliyay wanaagga maanta aan ku joogno maanta adigu nooma baahni annaga ku baahan wadanka ku baahan dalka ku baahan dadka ku baahan shacbiga ku baahan haweenka ku baahan haddii aan daraartii joognay aan maantana taaganahay oo joogna adiga nimaan ahayna aqliga iyaga kuma hooyooyinka qofkii ugu fadli badnaa ee dalka joogay waa iyada الله عافماتك وأتكي يا دينا توتاغو madaxweynaha jamhuuriyadda iyo isbedel dastuurka in lagu sameeyo RPP danta guud ee qaranka dadka iyadoo loo eegayo loo baahan yahay mar saddexaad inuu isa soo sharaxo oo xilka wadanka hoggaanka u qaybaha xubnaha kala gedisan ee xisbiga RPP ay hawsha galaan qorshaha heeganka gudaha iyo isku duwidda axsaabta xulufada la ah ka ugu wanaagsan ee tooska ah iyo hadallada dhabta u ah iyo xafiisyada federaasyoonyada wargeyska le progrès jamciyadda dhalinta iyo dejinta aalad sid wayba oo xagga wargaarsiinta qaabilsan xubnaha guddiga dhexe xisbigu waxa kale oo go'aansaday in la galo hawlgallo degdeg ah oo dib u habeyn guudeer si loo diyaariyo doorashooyin dambe oo xisbiga gudihiisa laga qabto kuna saabsan dib u cusboonaysiinta guddiga anagsyada waxa kaloo la go'aansaday sida wanaagsan ee meesha aad hawshiina uga timaadeen shaqadii uga qayb gasheen xisbiga aad matalaysaan guddiga dhexe u tihiinna waxa uu u baahan yahay maskaxda dadkeenna oo dhan waxaan dardaaran odhanayaa anigu waxa weeye xisbigan waxa uu ku jira ee uu 30 sannadood ku jiray waxa weeyaan midnimada qaranka u adkeynay kow
dalkeenna nabaddiisu waxay ku jirtaa ummaddiisa oo midaysan oo ixtiraam iyo walaalnimo ka dhaxayso waxa aan leenahay dadka axsaabta kale kuwa aan shuraakaha nahay mooyaane kuwa kale ee naga soo horjeeda waxaan leenahay hawsha aan dalka ugu jirno wixii aad daliilna tusaysaan anagu ma diideyno nabad wixii aad nagu weydiinaysaan ma diideyno dalka haddaa khiyaameynayno oo aad ininku aad leedihiin waxaabaad ku khiyaameynaysaana ma diideyno haddii ay gar tahay ma diideyno laakiin yeeli mayno cunfi yeeli mayno